بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. كلي قدومياشا laamaha oo hogaamiyo gudoomiyaha UK oo isaga caawan marti u nahay iyo garabka haweenka iyo ka soo qayb galayaasha mas'uuliyiinta sare ee xisbiga oo dhanba marka horeysa waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad bay ii farxad gelinaysaa cashadan sabootiga ah muxuu ahaayey aniga iyo waftigaan hogaaminayo oo haddii ilaa yidhaahdo aanu xagga ilaahay haddaan ka helno aan bixi doono khamiista soo socota oo 2 cisho runtii noo adhan tahay. marka hore waxaad noo samayseen casho muxuu ahaa waa farxad runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay. waa farxad kulay aad iyo aad muxuu ahaay boqolkiiba boqol aan aad ugu faraxsanahay runtii muddaan nila joogaa runtii badan 2 bilood baa runtii safarkaan nila jooga runtii ii dhammaaday. saad ka dhawaajisana runtii maantakaygu wuxuu ahaa aniga iyo waftiga waxay igu helinayay agaasimihii guud ee xisbiga wadani Yaasmin Cali Kariir. runtii hadda iminka anigu iyo waftiga waan baxaynaa ammaano weyn baan niga sii tegayaa oo Yaasmin way iga yar dambeynaysaa dee waa inaad ka waraysaan. runtii waxaan aad ugu faraxsanahay anigu gudoomiye ku-xigeenkii haddaan tegayo dee gudoomiye ku-xigeenkana waa nigaga tegayaa oo isaguna hawsha inala sii wadi doona oo Mustafa waa hawsha inala sii wadi doona oo dee waa gudoomiye ku-xigeenadii xisbiga oo hawl inkastoo la dhan nila yar degan yahay malaa isaga dee aad tirahdeen waa la dhanba nala degan yahay laakiin hawsha intaa wixii qabiye aanu aan ka tegay runtii isaga dee inala sii wadi doona. 2 kelmadood un baan caawa kolley anigu halkan inaga odhanaya mid waxa weeye mid waa mahadnaq oo aad iyo aad baad mahadsantihiin soo dhaweyntii hore sabootiga iyo intii aan shaqada soo inala joogay sidii aad ka qurux badan meel kastoo tegaba runtii aad igu soo dhaweynayseen iyo shaqadii fiicneed runtii wanaagsan ee intaan nala joogaan wada qabanayba waa mid aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waana mid aan ku ammaanayo runtii gudoomiye Xuseen Aadan Cadde iyo gudoomiyaasha hogaamiya laamaha iyo xogayihiisa iyo runtii garabka haweenka iyo dhammaantoodba nacam waxay ku tusaysaa waxaasoo shaqi muxuu ahay waxay ku tusaysaa wada shaqaynta iyo howlkarnimada iyo wada tashiga iyo muxuu is-aaminka iyo ismaqalka iyo isdhegaysiga aad runtii aadka u fiican ee aad tiimkiina maanta London UK wada joogaa runtii aad wada shaqaynaysaan aad bay cajab gelisay aniga sababtoo ah xisbiyadu runtii way dhib badan yihiin. ninka maanta gudoomiyaha ama laan gudoomiyaha ka noqdo ama UK gudoomiyaha ka noqdo ama meel kale ka noqdo markuu qofku mas'uul yahay xisbi u yahay runtii waa arrin dhib badan weeye waa arrin muxuu ahaayey le xagashadeeda le weeye waa arrin tuunkeyga le waa arrin culays badan leh runtii waa xil weyn weeye waxaas UK oo dhan maanta gudoomiyeegu culays badan baa runtii saaran. waxaan se ilaahay ka rajaynayaa oon aad iyo aadna u aaminsanahay mujaahid Xuseen Aadan Cadde iyo tiimkiisa ama haween ha noqdaan ama xogayaashiisa ha noqdaan ama laamihiisa ha noqdaan intaa UK joogay runtii ragga aan arkay ee uu hogaaminayo waa tiim runtii isku filan waa tiim runtii si aad u wanaagsan wada shaqaynaya. waxaan ilaahay ka rajaynayaa oo nigu dardaarmayaa in aad isku duubnida iyo midnimada iyo wada tashiga xisbiga insha Allah ku wadi doontaan haddii ilaahay yidhaahdo. xisbiga runtii waa xisbi qaran waa xisbi ballaaran waa xisbi dee hoggaankiisa ay ku wada jiraan muxuu ahaayey inta gobollo Somaliland ka koobantoo dhan ayna cid ka maqnayn sidaasaanu doonaynaa laamihiisa dibadda iyo laamihiisa gudaha inay dadku saa uga wada muuqdaan mas-uuliyaddu ay uga wada muuqato saasaan doonaynaa in muxuu ahaayey runtii arrimihii badan ee dhaqaalaha iyo dhinaca laga wada hadlayna in saa looga wada qaab qaato. runtii inkastoo kala tegeen muxuu ahaayey cabdiweyne intuu hogaaminaya caawa nala socotay
waxaan naga tegi doonaa kolley muxuu ahay tiim guddoomiyaha ku xidhnaan doona oon isbaray oo hogaaminayo muxuu ahay cabdi axmed cige uu hogaaminayo good runtii wixii tala iyo wixii tusaale iyo wada shaqayntaba isaga xidhin doona waxaan ku rajo weynahay xisbiga runtii wuxuu halbulaha ugu wanaagsan ugu weyn waxa weeye dumarka inuu keeni doono uu kaalinta buuxin doono dhinaca haweenka dhinaca dhalinyarada dhinaca odayaasha dhinac walba runtaa ninkaasan muxuu guddoomiye uu ku buuxin doonaa waa runoo dadku xisbiyadu dee guddoomiyaashu anagu ku-xigeenadii ama guddoomiyaashu marka halka yimaadaan dee waxa weeye waxaan u imanaynaa waa derdergerinta mar runtii derdergerintii runtii aan halkan u imiday aan waxaan isleeyahay wax badan runtii waan ku guulaystay wixii iga dhimana mustafaan ku dhaafi doonaa isoo doctoorka isaguna inala dhamayn doonaa aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay soo dhaweyntiina iyo sii sabootinkiina iyo wada tiimkiina wada shaqaynayaba waxaan inagu dardaarayaa sidaa aad u wada shaqaynaysaan runtii inaad wada shaqaysaan sidaa aad guddoomiyiina u garab taagantihiinna inaad muxuu ahaayey mar walba u garab taagantihiin waxaan u malaynayaa marka dibadda la yidhaahdo qurbaha marka la yidhaahdo u k guddoomiyaha maanta jooga iyo garabkiisa haweenkeesa inay maanta joogtaa waxay tihiin wadan marka loo eego runtii xisbi aad u nasiib badan ayuu wadani noqday waayo tiim nuucaa iskugu xidhan oo nuucaa wada shaqaynaya uu ku yaryahay muxuu ahaayey maanta qurbaha iyo gudahaba uu ku yaryahay marka aad iyo aad baad muxuu ahaayey asadka ilaahayna siiyey mujaahid maxamed xuseen aadan cadana xajista isku duubnaada midnimadiina iyo isku duubnidina ilaaliya runtii wixii dee dhaqaalaha iyo waxaa agaasimihii guud ee waxay nala joogta xisbiga iyadaa hawshaa u joogi doonta iyadaa kulamadeeda insha allah muddada ay iga dambayso wax yar bay iga dambaynaysaa oo 4 week iyo waxa meelaasa ama ka yar intaa iyadan waxaan inagu dardaali lahaa inaad wixii shaqaa iyo wixii hawla runtii guddoomiyaha iyo dee muxuu ahaay isla kaashataan oo iyaduna ay wixii hawla ay nala qaban karto dhinaca muxuu ahaayey abaabulka de xisbiga waa halbowlaha runtii yasmin xisbiga dhan wada weeye marka aniyo lanaga tego muxuu ahaayey cira iyo mustafa iyo raggan hogaanka ku jiro oo dhan iyada xisbiga runtii hagdka hawsha ugu badan runtii iyada ku dhacdaa waana gabadh runtii aad u hawl kara marka hadda inta ay nala joogtana waxaan nagu dardaari lahaa iyana anigii dareemin gabadhaas aad iyo aad baad runtii u mahadsantihiin waftigaa uu cabdi iyo muxuu ahaayey ku jiraan cali iyana iyo ciddii kale muxuu ahaayey ilaahay nala kulisiiyaan si raacinna ilahay waxaan ka rajeynayaa nabadgelya inaan dalka ugu noqono inagana waxaan inaga rajeynayaa si nabadgelya inuu ilaahay inagu nabad yeelo halkaad joogtaan midnimada iyo isku duubnida iyadoo tashiga xisbigana inaad ilaalisaan aad iyo aad baad runtii u mahadsantihiin anaguna marka dee guddoomiyiina UK noo imanayo sidaa iyo si ka wanaagsan baan insha allah usoo dhaweyn doonaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد كلي قدومياشا laamaha oo hogaamiyo gudoomiyaha UK oo isaga caawan demartu u nahay iyo garabka haweenka iyo ka soo qayb galayaasha mas'uuliyiinta sare ee xisbiga oo dhanba marka horeysa waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad bay ii farxad gelinaysaa cashadan sabootiga muxuu ahaayey aniga iyo waftigaan hogaaminayo oo haddii ilaa yidhaahdo aanu xagga ilahay haddaan ka helno aan bixi doono khamiisa soo socota oo 2 cisho runtii noo adhan tahay marka hore waxaad noo samayseen casho muxuu ahaayey dee martiqaadkii muxuu ahaayey soo dhaweynta iminkana runtii waxaad noo samayseen martiqaadkii sii sabootiga runtii waxa weeye waa farxad runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waa farxad kulley aad iyo aad muxuu ahaayey 100% aan aad ugu faraxsanahay runtii muddaan nila joogaa runtii badan 2 bilood baa runtii safarkaan nila jooga runtii ii dhammaaday saad ka dhawaajisana runtii maanta kaygu wuxuu ahaa aniga iyo waftiga waxay igu helinayay agaasimihii guud ee xisbiga waddan Yasmin Cali Kariir runtii
hadda iminka anigu iyo waftiga waan baxaynaa ammaano weyn baan niga sii tegayaa oo Yaasmin way iga yar dambeynaysaa dee waa inaad ka wareysaan runtii waxaan aad ugu faraxsanahay anigu gudoomiye ku-xigeenkii haddaan tegayo dee gudoomiye ku-xigeenkana waan nigaga tegayaa oo isaguna hawsha inala sii wadi doona oo Mustafa hawsha inala sii wadi doona oo dee waa gudoomiye ku-xigeenadii xisbiga oo hawl inkastoo la dhan nila yar degan yahay malaha isaga dee aad tirahdeen waa la dhanba uu nala degan yahay laakiin hawsha intaa wixii qabiye aanu aan ka tegay runtii isaga dee inala sii wadi doona laba kelmadood un baan caawa kolley anigu halkan inaga odhanaya mid waxa weeye mid waa mahadnaq oo dee aad iyo aad baad mahadsantihiin soo dhaweyntii hore sabootiga iyo intii aan shaqada soo inala joogay sidii aadka u qurux badan leh meel kastoo tegaba runtii aad igu soo dhaweynayseen iyo shaqadii fiicneed runtii wanaagsan intaan nala joogaan wada qabanayba waa mid aad iyo aad aan ugu faraxsanay waana mid aan ku ammaanayo runtii gudoomiye xuseen aadan cadde iyo gudoomiyaasha hogaamiya laamaha iyo xogayihiisa iyo runtii garabka haweenka iyo dhammaantoodba nacam waxay ku tusaysaa waxaasoo shaqi muxuu ahay waxay ku tusaysaa wada shaqaynta iyo howlkarnimada iyo wada tashiga iyo muxuu is-aaminka iyo ismaqalka iyo isdhegaysiga aad runtii aadka u fiican ee aad tiimkiina maanta London UK wada jooga runtii aad wada shaqaynaysaan aad bay cajab gelisay aniga sababtoo ah xisbiyadu runtii way dhib badan yihiin ninka maanta gudoomiyaha ama laan gudoomiyaha ka noqdo ama UK gudoomiyaha ka noqdo ama meel kale ka noqdo markuu qofku mas'uul yahay xisbi u yahay runtii waa arrin dhib badan weeye waa arrin muxuu ahaayey le xagashadeeda le weeye waa arrin tuunkeyga le waa arrin culays badan leh runtii waa xil weyn weeye waxaas UK oo dhan maanta gudoomiyeegu culays badan baa runtii saaran waxaan se ilaahay ka rajaynayaa oon aad iyo aadna u aaminsanahay mujaahid xuseen aadan cadde iyo tiimkiisa ama haween ha noqdaan ama xogayaashiisa ha noqdaan ama laamihiisa ha noqdaan intaan UK joogay runtii ragga aan arkay ee uu hogaaminayo waa tiim runtii isku filan waa tiim runtii si aad u wanaagsan u wada shaqaynaya waxaan ilaahay ka rajaynayaa oo nigu dardaarmayaa in aad isku duubnida iyo midnimada iyo wada tashiga xisbiga insha Allah ku wadi doontaan haddii ilaahay yiraahdo xisbiga runtii waa xisbi qaran waa xisbi ballaaran waa xisbi dee hoggaankiisa ay ku wada jiraan muxuu ahaayey inta gobollo Somaliland ka koobantoo dhan ayna cid ka maqnayn sidaasanu doonaynaa laamihiisa dibadda iyo laamihiisa gudaha inay dadku saa uga wada muuqdaan mas-uuliyadda ay uga wada muuqato saasaan doonaynaa in muxuu ahaayey runtii arrimihi badan ee dhaqaalaha iyo dhinaca laga wada hadlayna in saa looga wada qaab qaato runtii inkastoo kala tegeen muxuu ahaayey cabdiweyne inta uu hogaaminaya caawa nala socotay waxaan naga tegi doonaa kolley muxuu ahaayey tiim gudoomiyaha ku xidhnaan doona oon isbaray oo hogaaminayo muxuu ahaayey cabdi axmed cige uu hogaaminayo good runtii wixii talaa iyo wixii tusaalaha iyo wada shaqayntaba isaga xidhin doona waxaan ku rajo weynahay xisbiga runtii wuxuu halbulaha ugu wanaagsan ugu weyn waxa weeye dumarka inuu keeni doono uu kaalinta buuxin doono dhinaca haweenka dhinaca dhalinyarada dhinaca odayaasha dhinac walba runtaa ninkaasan muxuu gudoomiye uu ku buuxin doonaa waa runoo dadku xisbiyadu dee gudoomiyaashu anagu ku-xigeenadii ama gudoomiyaashu marka halka yimaadaan dee waxa weeye waxaan u imanaynaa waa derdergerinta runtii derdergerintii runtii aan halkan u imiday anu waxaan isleeyahay wax badan runtii waan ku guulaystay wixii iga dhimana Mustafaan ku dhaafi doonaa isoo doctorka isaguna inala dhamayn doonaa aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay soo dhaweyntiina iyo sii sabootinkiina iyo wada tiimkiina wada shaqaynayaba waxaan inagu dardaarayaa sidaa aad u wada shaqaynaysaan runtii inaad wada shaqaysaan sidaa aad gudoomiyiina u garab taagantihiin inaad muxuu ahaayey mar walba u garab taagantihiin waxaan u malaynayaa marka dibadda la yidhaahdo qurbaha marka la yidhaahdo UK gudoomiyaha maanta jooga iyo garabkiisa haweenka inay maanta joogtaa waxay tihiin wadan marka loo eego runtii xisbi aad u nasiib badan iyo wadan noqday waayo tiim nooca iskugu xidhan oo nooca wada shaqaynaya uu ku yaryahay muxuu ahaayey maanta qurbaha iyo gudahaba uu ku yaryahay marka aad iyo aad baad muxuu ahaayey asadka ilaahayna siiyey mujaahid xuseen aadan cadana xajista isku duubnaada
midnimadiina iyo isku duubnidiina ilaaliya runtii wixii dee dhaqaalaha iyo waxaa agaasimihii guud ee waxay noo joogta xisbiga iyadaa hawshaa u joogi doonta iyadaa kulamadeeda insha allah muddada ay iga dambayso wax yar bay iga dambaynaysaa oo 4 week iyo waxa meelaasa ama ka yar intaa iyadan waxaan inagu dardaali lahaa inaad wixii shaqaa iyo wixii hawla runtii gudoomiyaha iyo dee muxuu ahaay isla kaashataan oo iyaduna ay wixii hawla ay nala qaban karto dhinaca muxuu ahaay abaabulka da xisbiga waa halbuulaha runtii Yasmin xisbiga dhan wada weey marka aniyo la naga tago muxuu ahaay Cira iyo Mustafa iyo ragga hoggaanka ku jiro dhan iyada xisbiga runtii hagdka hawsha ugu badan runtii iyada ku dhacdaa waana gabadh runtii aad u yaado hawl kara marka deynta ay nila joogtana waxaan nagu dardaari lahaa iyana gudoomiye aniga dareemin gabadhaas aad iyo aad baa runtii u mahadsantiin waftiga Cabdi iyo muxuu ahaay ku jiraan Cali iyana iyo cidii kale muxuu ahaay ilaahay nala kursiyan sirraacina ilaahay wax ka rajeenayaa nabadgelyo inaan dalka ugu noqono inagana waxaan niga rajeenayaa si nabadgelyo inuu ilaahay inagu nabad yeelo halka joogtaan midnimada iyo isku duubnida iyadoo tashiga xisbigan inaad ilaalisaan aad iyo aad baa runtii u mahadsantihiin anaguna marka de gudoomiyaha UK noo imanayo sida ay si ka wanaagsan baan insha Allah u soo dhaweyn doonaa aad iyo aad baad u mahadsantahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi